madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa intii aanu safar shaqo ugu bixin gobolada galbeedka Soomaaliland waxa uu booqasho iyo salaan ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahna aasaasay xisbiga kulmiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo kaasoo gurigiisa ku booqday. wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ee safarka shaqo ugu kicitimay gobolka Gabiley ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay gobolkaasi. madaxweynaha ayaa soo dhaweyn aad u diiran waxa uu kala kulmay magaalooyinka u dhaxeeya gobolka Gabiley iyo gobolka Murujeex gaar ahaan magaalooyinka Gabiley iyo Hargeysa. waxaana madaxweynaha Soomaaliland si diiran loogu soo dhaweeyay magaalooyin ay kamid ahayeen magaalada Arabsiyo, Carrayambo, Abaarso iyo waliba tuulooyinka kala duwan ee u dhaxeeya deegaanadaasi. madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu horkacay ayaa markii ay soo gaadheen duleedka laga galo magaalada Gabiley waxa si diiran oo kaliya laaba ugu qaabilay maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolkaasi iyo kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan gobolkaasi kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay calanka Soomaaliland caleemo qoyan iyo eraya suugaaneed ka turjumayay sida ay u soo dhaweynayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa. madaxweynaha Soomaaliland ayaa shacabka reer Gabiley la dhaxlugay magaalada Gabiley gudaheeda kaasoo u gacan haadinaya si uu salaamo shacabkaasi soo dhaweynayay. afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsamo Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka waramay safarka madaxweynaha Soomaaliland uu ku marayo gobolka Gabiley iyo deegaanada kale ee hoos yimaada kaasoo afayeenku ku sheegay safarka madaxweynaha mid uu ku kurgalay xaaladda dhabta ee gobolka Gabiley. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Gabiley ee degmada Gabiley. wafdiga madaxweynaha oo ka soo kicitimay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ujeedada socdaalkooda wuxuu daaran yahay hawl maalmeedkii shaqo ee dastuuriga ahaa ee uu madaxweynuhu ku mari jiray gobolada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. muddada uu ku sugan yahay madaxweynuhu xarunta gobolka Gabiley wuxuu xoogaal u noqon doonaa xaaladda guud ee gobolka Gabiley, horumarka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda. madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ku sugnaan doona magaalada Gabiley xaruntiisa gobolka Gabiley waxay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada Gabiley. tan iyo saaka madaxweynuhu intuu ka soo kicitimay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ilaa uu soo gaaray xadka gobolka Gabiley uu la wadaago gobolka Murujeex waxay shacabweynaha reer Gabiley ku qaabilayeen soo dhaweyn aad u sareysa iyagoo wadooyinka la tubnaa calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan. madaxweynuhuna taa bedelkeeda isagoo dareenkooda farxadeed iyo reereynta ay shacabkiisu u qabaan madaxweynaha uu ka dareen celinayo wuxuu socod luga ku dhex maray magaalada jidadka waaweyn ee magaalada Gabiley. guud ahaan waxaan si aad iyo aad u mugiyo miisaan weyn ugu mahadnaqaynaa
guud ahaan shacabweynaha reer Gabiley ee madaxweynaha sida diiran u soo dhaweeyay gaar ahaan shacabka caasimadda gobolka Gabiley ee cagaaran ee degmada Gabiley. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada madaxda gobolka Gabiley ee Gabiley.